madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee hanjabaadda ahaa waxaa soo haray Soomaaliya dawladaha hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaantan dawladda Itoobiya intaas ka Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna ciddii aan danahayna ka soo horjeedana danaheedaan ka soo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro dawladda Itoobiya markale waxaan leenahay darisaan nahay ismaanaan dooran idinkuna nama dooran annagana idama dooran darisaan nahay xuduudda ugu dheer ee iyagu ay leeyihiin annaguna aan leenahay xaq dhowridaan isku leenahay aan isxaq dhowrno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoqin oo laga dhiijinin aan leenahay intaas wixii ka sokeeyo wax aan kaloon gaar ah oo aan ka rabno ama aan ka qabnaahay ma jirto sidoo kale madaxweynuhu isaga oo ka hadlayay sida kaliya ee Ethiopia iyo Soomaaliya ay ku heshiin karaan waxa uu sheegay in looga baahan yahay dawladda Ethiopia inay si public ah ay raaligelin uga bixiso heshiiskii ay la gashay Somaliland isla markaana ay qiraan madaxdooda wasaaradooda arrimaha dibadda iyo xitaa golahooda amniga qaranka iyo cid kasta oo markii horeba raali ka ahayd xadgudubka lagu sameeyay Soomaaliya waxaana uu sheegay in taa ay tahay mid kaliya ee Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku heshiin karaan. Why not? One, it is in public domain. Ethiopia said we do this in exchange of recognition. We recognize Somaliland. That's in public and that's official. And they said they didn't say it only one time. The Prime Minister said, the Minister of Foreign Affairs said, the National Security Advisor said, many other leaders in Ethiopia said. So the recognition is there. I'm sorry, but they have walked that all the way back, Somalia has. They have said this is not an official recognition of the sovereignty of Somaliland. We don't have that yet. It's you who have that. No, they put it on... si kastaba Soomaaliya ayaa wado ololo weyn oo diblomaasiyadeed oo ka dhana dawladda Ethiopia taas oo hadda